بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام walaalyaal, marka ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh. ilaahigii mar kale noo suurtogeliyey annagoo khayraadka iyo wanaagga isku sheegayno. waxaanu ku soo dhex jirnay fadliga maalinta yowmu carafa ayaanu ku soo dhex jirnay. waxyaabihii aan fadliga markii aan uga soo hadalnay kadib waxaan ka hadalnay acmaasha la qabanayo maalinta carafo. waxaan soo sheegnay soonka la soomaayo oo dadka aan xujayda ahayn maalinta carafa inay soomaan. waxaan soo sheegnay in dikriga ilaahay iyo ducada in la badiyo. waxaa kaloo aan soo sheegnay in takbiirta la qaado, oo takbiirtuna waxaan u soo kala qaybinay laba qaybood. midna waxay ahayd waxa mutlaq, bisha markay bilataba oo takbiirta meel walba lagu qaadayo. midna waa muqayado, maalinta carafo salaada subax markii la dukado oo xujayda carafo ay qulqulayaan ayaa la bilaabaya. qaybta kale waa ducada, baryada ilaahay in la badiyo, oo macnaha waxaan ka soo sheekaynay ducooyinka rasuulka uu ku ducaysan jiray ayaan qaarkoodii ayaan soo sheegnay. waxyaabaha marka oo meeshaan aan kaga hadlayn waxaa ka mid ah macnaha maalintaas in mararka qaarna laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lagu wardiyo, mararka qaarna tasbiixda lagu wardiyo, mararka qaarna qur'aan akhriska lagu wardiyo, mararka qaarna saliga nabiga lagu wardiyo, mararka qaarna istikfaar iyo dembi dhaaf la weydiisto, in ilaahay la baryo qof ahaanna mufrad ahaanna inuu qofka ilaahay u baryo, wadajir iyo jamaaco iyo ummadna inay wada ducaystaan. qofka markuu ducaysana waxaan soo sheegnay marka hore inuu nafsadiisi wixii uu rabo khayr iyo dunya walaakhira inuu ilaahay ka baryo. waxa uu ku xijinayaa labadiisii waalid ayuu ku xijisinayaa, maxaa yeelay ayaga xaqa bin aadanka ay ku leeyihiin ayaga ugu xaqnimo badan. mashaa'ikhdiisii dadkii diinta soo baray ayuu u ducaynayaa, dadkii diinta u ka soo gaaray. waxaa kaloo qaraabadiisii, asxaabtiisii, asdiqadiisii, axbaabtiisii iyo dadka maxaanku rahdaa wasaa'ir man axsana ilayh, dadka wanaagga u sameeyey oo dhan ayuu u ducaynayaa. iyo muslimiinta oo dhanba. dhinaca kalena waxaa la nooga digay walyaxdar kullu lxadar, qofka inuu digtooni inuu ku jiro waay oo ka digtoonaado taqsiirka, shay inuu ka gaabiyo oo waxyaabahan aan ka soo sheekaynay wax ka mida inuu ka gaabiyo, inuu ka digtoonaado waay. macnaha fa ina hada alyowm laa yamkinu tadaarukuhu, maanta oo kale oo maalinta carafo waa ayaan ka wadnaaye wax ka daba tegi kara ma jiro, mana macnaha wixii ku dhaafo lama samayn karo, tadaarug laguma samayn karo, maadaama aan la awoodi karin in la soo celiyo. wax kastaba bikhilaafi gayrihi, carafo waxaan ahayn wixii waa la soo gudi karaa, laakiin lama soo qallayn karo. tadaarugna laguma samayn karo carafo hadday ku dhaafto, in laga faa'iidaysto waayo. waxaa habboon marka qofka inuu ku celceliyo istikfaarta, inuu qofka dembi dhaafka ilaahay uu weydiisanayo istikfaarta
inuu ku celceliyo waxa waaye inuu ku dhawaaqo towbada rabbi ighfir lii watub calaya innaka anta tawaabu raxiim. istikfaarta iyo towbada isku xiran qofka inuu aad iyo aad u badiyo ayaa la rabaa. waxa waaye taas waaye min jamiici mukhaalafaat inuu ka toobad keeno waxyaabihii oo ilaahay iyo shareecadiisa uu ku khilaafay oo dhan oo dembi ah inuu ka toobad keeno oo ilaahay u soo noqdo waayo. waxa waaye maca annadmi bilqalbi markuu toobad keenayana inuu qalbigiisana qoomamo ay ku jirto oo ka shallaynaayo wixii oo horey u sameeyey. waxa waaye inuu qoomamoonaayo waayo maca annadmi bilqalbi. inuu badiyo oohinta inuu badiyo qofka waxaa la rabaa inuu markuu waxa waaye qalbigiis inuu qoyan yahayo oohinta markuu dikriga ilaahay xusaayo iyo markuu ducaysanaayaba inuu oohinta uu badiyo inuu ooyo waayo. fa hunaaka waxa waaye taskubu alcibraat marka taas waaye waxyaabaha oo maxaan ku rahdaa oo cafaraadkii iyo meelka dhacyihii waxyaabaha lagaaga tirtiraayo waaye waxaan ku rahdaa waxyaabaha qofka dalabaadkii wax ilaahay uu ka dalbanayana uu rajaynayo waayo. marka maadaama waxa waaye wixii meel ka dhacaagi oo wixii meel aad uga dhacday oo khaladaad aad gashay oo ilaahay kaaga asturaayo oo waxyaabaha wanaagsan dalabaadkaagana oo aad rajaynayso marka adducaa'u waxa waaye maca albukaa inuu oohinta oo qofka inuu badiyo dikriga iyo ducada inuu oohinta uu ku badiyo waayo. wa min acdami majaamici addunya waxyaabaha aad raadinayso aad dalbanayso waxa waaye adduunyadani macnaha wanaaggeedii oo dhan oo kulankeedii oo dhan adigoo raadinaya. waxaa la yidhaahdaa idaa waafaqa yowmu carafa yowmu aljumca haddii masalan mararka qaar maalinta jumcada iyo carafo ay iswaafaqaan waaye. idaa waafaqa yowmu carafa yowmu aljumca gufira likulli ahli lmowqifi waxa waaye waxaa loo wada dembi dhaafaa waxa mowqifkaas carafo taagan oo dhan waa loo dhaafayaa ilaa an qaala inuu yidhaahdo waxa waaye maxaan ku rahdaa ilaa an qaal wa min aladciyati waxyaabaha ka mida ducooyinka oo lasoo doortay oo ugu fiican oo qofka uu ku ducaysanayo waxa ugu muhiimsan oo rasuulkeena uu ku ducaysan jiray ay tahay allaahumma aatinaa fi dunyaa xasana wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar. horta taas inaad aad u badiso waayo waxay jamcinaysaa oy kulminaysaa khayra addunya waalaakhira ducadaani. allaahumma ama rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganago aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan xaalad wanaagsan ilaahu nasii wa fil aakhirati aakhirana xasanatan xaalad wanaagsan nasii. xaaladeenna adduunyo iyo xaaladeenna aakhiraba ilaahu noo ilaali. waqinaa cadaaba annaar naarta ilaahay cadaabkeedana ilaahu naga badbaadi. allaahumma ducadaana wuu ku ducaysanayaa allaahumma allahyow innii aniga dalamtu waan dulmiyey nafsii nafsadayda dulman kahiiran kabiira dulmi fara badan oo weyn ayaan naftayda aan dulmiyey. wa innahu sida jirto xaqiiqadana laa yakfiru dunuuba dembiyada ma dhaafo ilaa anta adiga maahane. waxa waaye dembiyada oo dhanna ilaahu adigunbaa dhaafo waaye. fakfir lii ilaahu ii dhaaf maqfiratan dembi dhaaf oo min cindika agtaada ahaatay. warxamnii ilaahu ii naxariiso naxariistaada isii. warxamnii raxmatan ascidu biha fi daarayni ilaahayow naxariis isii naxariistaas oo aan ku liibaanayo oon maxaan ku rahdaa labada daarood oo aan ku liibaanayo fi daarayni. watub calaya ilaahayow iga tooba aqbal. watub calaya tawbatan nasuuxan towbo oo ansax ah oo shuruudaheedii wadata ilaahu iga aqbal. tawbatan nasuuxa waayo laa adkumuhaa abadan walzimnii fi sabiili listiqaama. ilaahay subxaana wa tacaala waxa waaye toobadaasi oo waxba aan dhaafaynin oo wax walba iga tartarayso ilaahu ilaazimi waddadii istiqaamada toosnidaas waddadeedii macnaha igu toosi. wa alzimni ilaahu ilaazimi waayo inaan ku dheganaado ilaahu ii fududay
sabiila alistiqaamati toosnida waddadeeda inaan ku toosnaado laa aziiqu canha abadan toosnidaas oo aan dib dambe aanan dib u noqonaynin oo aanan leecaynin oo aan maxaan ku rahdaa oo aan meel uga maxaan ku rahdaa aan noqonayn ilaahayow macnaha leexasho ama qallooc aan ka imaanin toosanaan oo aan qallooc ka imaanayn waaye yaa ilaahayow kaa weydiisanaya waaye oo aan leexinin allaahuma anqilnii min dalli macsiyati ilaa cizi taaca allaahuma anqilnii ilaahu ii guuri ilaahu iga guuri waxa waaye min dilli lmacsiya macsiyada caasinta adiga aan kuga caasiyey dullinimadii aan ka qaaday ilaahu iga wareeji ilaa cizi taaca ilaahu waxaad ii wareejisaa daacadaada cizigeedii iyo sharafteedii wa akfini ilaahu ikaafi bikhalaaqika wa bixalaalika wa akfini ilaahu ikaafi bixalaalika xalaashaada ilaahu igu kaafi maxaan ku radaa an xaaraamika xaaraamtaada iga kaafi ilaahayow iga maaransii xaaraan xalaashaadana igu maaransii macnaha wa akfini ilaahu igu filnaysii bixalaalika xalaashaada igaga filnaysii an xaaraamika xaaraantaada inaan ka leexdo wixii adigana iga xaaraamta wa aqnini ilaahu ideeq bifadlika wanaagaaga iyo fadligaaga ilaahu igu deeq wa aqnini bifadlika caman siwaaka wixii adiga kaa soo haray oo dhan ilaahu iga deeq ilaahu adiga ayaa igu filane ilaahaya adigaa tiri alaysa allaahu bikaafin cabda qofka rabbigiisa miyuusan ku filnayn alaysa allaahu ilaahay miyuusan ahayn bikaafin cabda addoonkiisa miyuusan ku filnayn ilaahu xalaashaada igu celi xaaraantaadana iga ilaali fadligaaga igu deeq wixii adiga kaa soo haray oo dhan iga deeq waaye wanawir qalbi ilaahu qalbigayga nuuri waaye wa qabrii qabrigaygana nuuri waaye waqfirlii ilaahu ii dhaaf min ashari kullihi shar oo dhan ilaahu ii dhaaf min ashari kulli shar oo dhan ilaahu ii dhaaf wajmac lii alkhayra ilaahu khayr oo dhan ii kulmi ducada inaad xifdido oo aad ku ducaysato waaye ilaahayow qalbigayga ii nuuri qabriga aan ku hooyan doonana ilaahu ii nuuri ilaahu wax kasta oo shar oo dhan ilaahu iga ilaali wax kastoo dhan ilaahu ii dhaaf waay wajmac liya alkhayra ilaahu khayr oo dhan ii kulmi waay allaahuma allahayow innii aniga as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alhudaa hanuun iyo watuqaa alla cabsi ama dhoorsani ayaan ilaahu ku weydiisanayaa iyo walcafaafa cafiifnimo waxa waaye dhoorsanidii waaye waqnini waaye iyo walghina haninimo inaad tiraahda allaahuma innii as'aluka alhudaa watuqaa walcafaafa walghina afarta ugu muhiimsan waaye khayr iyo dunya waalaakhira ilaah waxaan ku weydiisanaya hanuun watuqaa taqwo ayaan ku weydiisanaya iyo walcafaafa cafiifnimo oo xalaasha aan ku dhoorsanaado xaaraanta aan ka dhoorsanaado iyo walghinaa hodantinimo iyo taajirnimo allaahuma yasirnii ilaahu ii fududay lilyusraa xaaladii ficneed oo fududeed ilaahu ii fududay waaye wajinwi ilaahu iga ilaali alcusraa xaaladii culayska ahaydna ilaahu iga ilaali warsuqnii ilaahu igu arsaaq daacataka daacadaad ilaahu igu arsaaq ma abqaytanii inta aad baaqiba iga dhigayso ilaahu iga arsaaq warsuqnii daacataka ilaahu daacadaada igu arsaaq ma abqaytanii intaa aad baaqi iga dhigto adduunyada inta aan joogaba ilaahayow maxaa arsaaq daacadaada igu arsaaq waxa waaye ma abqaytanii intaad ibaaqi yeesho adduunyada aan joogaba ilaahu daacadaada igu arsaaq istawdictuka minii wa min axbaabi waa ilaahayow waxaan wadeeco dhigayaa oo aan kugu ammaan yeelayaa waxa waaye noloshaydii waxa waaye wastawdic minii wa min axbaabi iyo dadka aan axbaabtaan isjecelnahay ayaa ilaahay subxaana ilaahayow ayaan wadeeco kaa dhigaya oo aan kugu dhaafaya aan kugu ammaan yeelayaa waa nafsadeed ilaahu adaa ammaankaagaan ku jiraa dadka aan isjecelnahay axbaabtayda iyo dadka muslimiintaba ilaahayow wadeecadaada ayaan ku jirnaa adaanku wadeeco dhignay
adaan ku amaankaaga ayaan ku jirnaa waayahay adyaanana waayaha waxyaabaha diinteeni iyo adduunyadeeni iyo ammaanadeeni iyo wa khawaatima acmaalina cimrigeena gebagabadiisaba ilaahayow waxaan ammaankaaga ayaan ku dhex jirnaa waxa waaye noloshayda iyo muslimiinta waxa waaye diinteena adduunyadeeni waxa waaye ammaanadeeni iyo cimrigeeni gebagabadiisii acmaalina wa aqwaalina hadalladeeni wa abdaanina badankeeni wa jamiica maa ancamta bihi calayna ilaahayow inta aad maxaan ku rahdaa waxa waaye wax allaale inta ilaahayow aad noogu nicmaysay oo dhan ayaa ilaahow ayaan ku weydiisanaynaa wix allaale wixii adiga aad noogu nicmaysay intiisii badnaa inaad noo ilaaliso ayaan ku weydiisanaynaa marka taasna waxa waaye maalintaas carafo waa maalin aad iyo aad u qiimo badan marka in laga faa'iidaysto waxa waaye waxyaabaha ilaahay loogu dhowaanayo maalinta ugu fiican oo waxa waaye qofka bin aadanka oo uu maxaan ku rahdaa ilaahay ugu dhowaanayo waay marka in qof kastaba uu fiiriyo maalinta carafa waxa waaye maalin aad u qiimo badan waay dembi dhaaf waay waxa waaye dadka oo dhan ayaa naarta dadka badankiisa ayaa naarta laga xoreynaya ilaahay ducada wuu aqbalaya ajarka laga helaayana waa mudaacaf waay waxa waaye lama koobi karo mudaacaf waay marka fadliga maalintaasi waxyaabaha ugu horeeya qofka inuu hortiisa soo dhigto yowmun yactiqu fiihi alcibaadu min annaar waa maalinta dadka naarta laga xoreynaayo waay xadiiskii imaamu muslim uu soo saaray umuna caaisha aan horey u qaadanay rasuulka sal allahu alayh wasalam uu yihi maa min yowmin akthara min an yactiq allahu fiihi cabdan min annaari yowmu carafa maalin ma jirto ka badan oo ilaahay subxaana wa tacaala oo xoreynaayo dadka naarta ku xoreynaayo maalinta carafa maalin ka badan ma jirto waaye marka waxa waaye maalintaasina yowmu carafana fawaa'idaas fara badan maxaa yeele wax badan ayaa ku aruursan waaye in ducooyinka lagu dadaalo oo ilaahay la baryo waaye maalin oo ducooyinka la aqbalayo waaye macnaha yowmun yustajaabu fiihi adducaa maalinta ducada la aqbalayo waaye camr ibnu shucayb waxaa laga waray aabihiisa iyo awowgiisaba nabiga sal allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi khayru ducaa'i yowmu carafa duca waxaa u khayr badan ducada maalinta carafa ayaa u khayr badan wa khayra maa qultu ana wannabiyuun min qabli aniga iyo waxa waaye dadkii nebiyadii iga horreeyey wixii aan ku dhawaaqnay waxa u khayr badan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir in lagu celceliyo lagu werdiyo waayo maalin ajarka la helaayo oo mudaacaf yahay waayo oo waa lala lablaabayaa rasuulka sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi maa min camalin askaa cinda allaahi caza wajal maalin ma jirto camalka ka daahirsan walaa acdamu ajran ajarka weyn min khayrin yacmaluhu macnaha qofka khayrka uu camal falaayo ka ajar weyn ma jirto fi lcashri aladaaxi qiila waxaa la yidhi wala aljihaadu fi sabiili illah xataa jihaadka hataa miya qaala rasuulku wala aljihaadu fi sabiili illah ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishay qof naftiisa iyo maalkiisa wixii dhan khatar geliyey aan waxba soo celinin waxaa kaloo layidhahdaa acmaalu yowma carafa ayaan ku dhex jirnay alwuquufu bicarafa maalinta xujayda carafa ay istaagayaan maxaa yeele waxayna ka mid tahay xajka la xajinaayo tiirarka uu ku taagan yahay tiir ka mid a waaye waxaa waajiba marka qof kasta oo mustadiica awoodo in uu guto waxaa kaloo ka mid ah acmaasha aan soo sheegnay ducada waa la ajiiba qofka muslimkaa ducada waa laga ajiibaa markuu uu badiyo fii yowmi carafa wa an yadcuu linafsihi wa ahlihi wa ikhwaanihi macnaha qofka inuu u duceeyo nafsadiisii ehelkiisii walaaladiisii waxa waaye dadka oo dhan waxa waaye dadka madaxda ah dadka ummadda muslimiinta madaxda u ah inuu u duceeyo dadka muraabitiinta ah ciidamada muraabitiinta ah dhufayska ku jira oo waxa waaye gaalada hor taagan inuu u duceeyo waxa waaye taasna waa mid dadka u taagan khidmada duyuuf araxmaan dadka ilaahay martidiisii u khidmaynaya ilaa kulligooda in loo duceeyo in maalintaasi dadka aan xujaayda ahayn
oo aysan marna aysan dhaafin waxa waaye soonka maalinta carafa la soomaayo. maxaa yeelay soonka maalinta carafa la soomaayo dadka aan xujayda ahayn oo carafo taagnayn soonkaasi waxay u dhigmaan ajar helayaan 2 sano ayaa loogu dambi dhaafaa sanadii hadda soo dhaaflay iyo wadda soo socotaba. qofka inuu badiyo waxa waaye dikriga inuu badiyo, tasbiixda inuu badiyo. waxaa sunnaa qofka muslimka inuu badiyo dikriga iyo tasbiixa fi yawmi carafa inuu badiyo, inuu aad iyo aad ugu dadaalo ayaa muhiim ah. marka waxa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala si guud ahaan markaan fiirino ama si gaar ahaanba ilaahay wuxuuna soo gaarsiiyey maalin qiimo badan ama 10 maalmood oo qiimo badan ay ku dhex jirto oo yawmu carafa. waxa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii nasiib u yeelata oo maalinta carafa gaarta oo maxaan ku rahdaa inay ilaahay inuu siiyey khayr fara badan inuu ilaahay siiyey inay ogaadaan waay khayr fara badan inuu ilaahay siiyey inay ogaadaan oo ay ka faa'iidaystaan. marka waxa waaye khayrkaasi faraha badan oo ilaahay ku gaarsiiyey acmaasha oo mustaxabada ah inuu qofka aad ugu dadaalo. maxaa yeelay waad lagu sheegay waad ogaatay waxa waaye acmaasha la qabanayo shaqada oo sunnada ah oo ajarka badan laga helaayo waad ogaatay. waa nicmo ilaahay waaye, waa fadli ilaahay waaye. kayfiyada loo ducaysanayo waa soo ogaatay, waa lagu sheegay weliba maalinta aadka u weyn. marka in ilaahay dambi dhaaf la weydiisto oo ilaahay laga tuugo waxa waaye quluub saafi ana ilaahay lagu tuugo, ilaahay laga dalbado alcafu waalraxmatu waalmaqfira. intaasaa muhiim ah. cafin inuu ilaahay ku cafiyo, inaad ilaahay baryada ilaahay aad baryanayso inuu ilaahay ku cafiyo ku celceli. naxariista ilaahay inuu ilaahay kugu shubo ku celceli. dembi dhaafka aad weydiisanayso ilaahay maxaan ku rahdaa ku celceli. maxaa yeelay ilaahay waa samiic waaye, waa maqal badan yahay, waa mujiib waaye. ciddii tuugtana ducadooda waa aqbalaa. laa yaruddu cibaada almukhlisiin. ilaahay dadka mukhlisiinta ah cibaadadooda ikhlaaska ducadooda ikhlaaska mukhlisiinta noocaasa ilaahay ducadooda ma soo celiyo waaye. marka waxaa la rabaa maalinta waxa waaye inaad qof kastaba inuu ka dhigto yawmun litawbati can adunuub. waxa waaye ijcaluu hada alyawm yawman litagyiir. maalintaasi isbeddel waa in laga arkaa oo maalinta carafa si gaar ahaan in isbeddel laga arkaa. maalin oo dunuubta oo dhan laga toobad keenaayo oo safxad cusub lala imaanayo waxa waaye yawman inay noqoto waaye iltizaami bidiin illaahi. waa maalin oo qofka inuu iltizaamo oo diinta ilaahay ku toosanaado inuu qabsado waaye. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa waaye waa ghafuur waaye, waa dhaafid badan yahay. ciddii dembi dhaaf weydiisata ayuu u dhaafaa. waa naxariis badan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. ciddii naxariista mutaysata ayuu u naxariisanayaa waaye. ilaahay toobada wuxuu ka aqbalayaa addoomihiisa markay u toobad keenaan toobada wuu ka aqbalayaa. ilaahay wuu cafinayaa addoomihiisa markay cafis ilaahay ay weydiistaan. marka inaan ilaahay ka barino, ilaahay aan barino in ilaahayna waafajiyo. nas'alu allaha tacaala an yuwafiqana liacmaarati beyt alxaraam. ilaahay inuu noo kaso dadka kacbada iyo beytullahi alxaraam kuwa camira. ilaahay inuu noo kasto mar walba inaan ilaahay ka baryino. taas waa mid waaye inuu ilaahay naga dhigo haddii aan xaj ilaahay noo kasana xaj mabruur ah oo lagu baarnimo sameeyey inuu ilaahayna siiyo. waxa waaye wa min asucadaa'i almuqarabiin. ilaahay waxaan weydiisanaynaa dadka sucadada ah oo ilaahay u dhow inaan ka mid noqono ayaan ilaahay weydiisanaynaa. mar walbaba inaan ku dadaalno waxyaabaha oo annaga noo wanaagsan, waxyaabaha oo adciyada oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam laga soo guuriyey, waxyaabaha aan ku darayno yawmu carafa ilaa hadihi alkhaatima mithla ducaa'i nabi sallallahu alayhi wasallam. ducadii nabiga uu ku ducaysan jiray inuu qofka u daa'imo. muxuu rasuulku ku ducaysan jiray? waxa waaye idaafa bacda annasaa'ix lilmuslimiin. waxa waaye rasuulku ku ducaysan jiray maxay ahayd? laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir. inuu qofka aad iyo aad ugu dadaalo waayo. waxa waaye waxaa suurtagal ah inaan ku dadno waxyaabo nasiixooyin ah dadka muslimiinta ah in loogu nasiixaynayo maalintaani. waxaa ka mid ah inuu qofka u badiyoba wardigiisii carabkiisa uusan marna ka daalin dikriga iyo tasbiixa. waxa waaye carabkaaga inuusan marna ka daalin oo aan kala go' kugu dhicin. inaad ilaahay ka bariso, waxa waaye inaad badiso dikriga, xuska ilaahay, tasbiixda, dikriga ilaahay oo qur-aanka ugu horeeyo
oo tawxiidka takbiirta tasbiixda qofka inuu aad ugu dadaalo wardiga oo waxa waye qofka uu ku wardinayo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika tasbiixdii iyo taxmiidkii iyo intii oo dhan inuu ilaahay uu badiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu asagoo weydiisanayo waxaa kaloo ka mid ah qiraa'atu lqur'aan qur'aanka akhrintiisii afdalu dikri waaye dikriga xuska ilaahay la xusaayo kan ugu fadli badan waaye qur'aanka akhrintiisana qofka inuu aad ugu dadaalo waa muhiim waaye waxaa kaloo ka mid ah altasaduqu cala alfuqaraa'i waalmuxtaajiin qofka inuu ku sadaqaysto qofka ilaahay wax siiyey dadka maxaan ku rahda fuqarada ah aan waxba haysanin oo eber ah ama hadday wax haystaan wixii haystaan aysan ku filnayn masaakiintana waa sidaas iyo bilcagsigeedii masaakiintana in maxaan ku rahda la xiriiriyo oo waxawaaye lagu sadaqaysto masaakiintana kuwa waxba aan haysaninna masaakiinta waa la yidhahdaa mise kuwa waxay haystaan aysan ku filnayn masaakiin waa la yidhahdaa alfuqaraa walmasaakiin maxaan ku rahda in lagu sadaqaysto aad iyo aad ayay muhiim u tahay waayo waxyaabaha acmaasha la qabanayo oo qofka loogu naseexaynayo inuu qaraabada xiriiriyo waa munaasabad aad u qiimo badan waayo oo qofka uu qaraabadiis uu ku xiriirinayo qaraabadii oo waxaa laga yaabaa in muddo aan la is arkin haddii la aadi karo in la aado oo qaraabo xiriirinta aaditaan lagu aado ama haddaan la aadi karinna lala xiriiro oo teleefoono iyo wax loo diro waxa waaye taasna silatul arxaam riximka in la xiriiriyo maxaa yeele xilliyadaas oo kale waxa waaye qofka oo aad xiriiriso wax weyn waayo ayaad arkaysaa marka silatul arxaam riximka in la xiriiriyana aad bay uga tahay waxa waaye dadka madaalimta ah waxa waaye mataacim dheh waxa waaye dadka waxa waaye in la xiriiriyo madaalimta waxa waaye qofka in dembi dhaaf weydiisto qofkii qof dulmiyeyna inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto gufraanu lmadaalim baa la yidhahda dulmigana in laga toobad keeno ilaahay la weydiisto oo ilaahay subxaana wa tacaala oo waxaa laga baryayaa in dhammaanteennaba inuu ilaahay subxaana wa tacaala oo waxaynu waafajiyo muhiimadda waxay tahay in ilaahay wax ku waafajiyo waayo waxaan la sheegaayo waxa waaye afka waa laga sheegi karaa laakiin inaad wixii aad fuliso waxay u baahan tahay tawfiiq tawfiiqdana aad bay u yartahay qur-aanka 2 meelood ayay ku soo aroortay marka in ilaahay la weydiisto inuu ilaahayna waafajiyo tawfiiqda inuu ilaahayna waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala mar walba inaan ka barino weliba waqtiga aan ilaahay baryayno inuu ilaahay noogu aadiyo saacada loo yaqaano saacatul ijaaba oo habeen kasta ay ku jirto maalinta jumcada ay ku jirto saacatul ijaabadaasna iyo salaadaha faradka gadaashooda waqtiyada la ajiibaayo waayo aadaanka iyo aqimka dhexdooda waqtiyada la ajiibaayo waayo waqtiyadaasi oo dhan saacatul ijaabada ka buuxdo inuu ilaahay saacatul ijaaba inuu ilaahayna waafajiyo mar walba inaan ilaahay weydiisano ilaahay subxaana wa tacaala inaan weydiisano oo aan ka barino waxa waaye maxaan ku rahdaa yaqiin inuu ilaahay nagu arsaaqo rasuulkeena yidhi sal allahu alay wasalam udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya idinka oo yaqiinsan oo huba in la idinka aqbalayo yaqiintaasi marka inuu ilaahay nagu arsaaqo inaan yaqiinta aan ilaahay ku qabno inuu ilaahay nagu arsaaqo udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba lid ilaahayow waxa waaye mar walba inaan ilaahay weydiisano ilaahow yaqiinta nagu arsaaq ilaahow yaqiinta nagu arsaaq ilaahow yaqiinta kalsoonida adiga aan kuu qabno ilaahow nagu arsaaq kalsoonida aad bay muhiim u tahay kalsoonida ilaahow nagu arsaaq kalsoonida ilaahay oo markaad nagu arsaaqaysana wax kasta oo kalsoonida aan kugu qabno oo naga hor istaagayo o dhan waxa waaye ilaahow naga leexi oo ay ka mid tahay cabsida waxa waaye iyo qalqalka iyo walbahaarka oo aan leenahay waxba lagaama aqbalayo oo waxa waaye qalbigeena waxaas oo dhan ilaahu ka tirtir waxa waaye alkhawfu walqalaqu waxa waaye cabsida iyo qalaqa ilaahayow qalbigeena ka leexi oo waxa waaye ilaahu naga leexi waayo waxaa kaloon ilaahay ka baryaynaa wax kasta oo waswaas ah ilaahu inuu naga leexiyo waswaas shaki waxaasoo dhan inuu ilaahay naga leexiyo marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhammaanteenaba inuu dhammaanna waafajiyo fadligaasi maalintaasi in aan ka faa'iidaysano aan gaarno aan ka qanimaysano ilaahay inuuna waafajiyo ayaan ilaahay weydiisanaynaa qaybtan halkaan ayaan ku joojinaynaa khudbada yoomu carafa iyo udxiyadana
casharada kuwan ku xiga ayaan ku qaadanaynaa. ilaahay hana waanfaco. hada wabillahi tawfiiq, wallahu calaa ma aquulu wakiil. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.